nicmada aakhiradu waxay gaar ku tahay dadka iimaanka iska leh. daarta barsaqa iyo daarul qaraar waxaa raaxa helaya waa dadka rabbi ka baqay subxaana wa tacaala. 3 daarood ayaa jirta: daarta adduunyada, daarta barsaqa iyo midda daarul qaraar la yidhaah. daarta adduunyada mu'min iyo munaafiqba waxbay ka wada cunaan, laakiin daarta barsaqa oo qabriga ah iyo midda la yidhaah daarul qaraar oo ugu dambayso dadku janno iyo naar mid kale tegayaan, dadka rabbigood ka cabsaday bis ayaa ku raaxaysta. haddaba walaalayaal, dad rabbigood ka cabsada ee jannada alle rabbi ka rijeeya oo daacada alle u dadaala aan noqono oo diinta islaamku siday tahay ugu dhaqma. wax walba oo dulli ah waxaa u sabab ah macsiyada iyo dembiga. caasinta alle haddaan iska ilaalino oon diinta u shaqayno, ilaah wuuna ilaalinayaa, dulligana wuu naga dhowrayaa in badan. haddaba walaalayaal, qofka rabbigii caasiya qabriga ayaa lagu cadaabaa, murug iyo tiiraanyo ayaa lagu sallidaa, xabadka ayaa laga ciriiriyaa, rabbigii ayaa ka jeestaa, daarta aakhiradana waa lagu silciyaa. ilaahay khayrkii mid ku xirma ayaa laga dhigaa, xagga rabbi ayuu ka go'aa, waadi kasta oo lagu halaagsamana wuu ku dhacaa. ilaah waxaan ka rajaynaynaa inuuna ilaaliyo, nagana bixiyo dhibaatooyinkaas oo idilba. haddaba walaalayaal, waxaan jeclay inaan hadal yar oo kooban oo aad u badnayn oo aan dardaaran halkan ka yidhaahdo, kaasoon u soo jeedinayo walaalahayga aan aad u jeclay alla dartii, oo ah ragga iyo dumarka wada noolaan doona ama hadda ka hor wada noolba. run ahaan si gaara waxaan warkakan ugu soo jeedinayaa dad aan kalsooni gaara aada ugu qabo. waxaadna moodaa inay noqon doonto masalada tan oo mid anigana i khusayda, walaalahayga kalena khusayda oo ay ka faa'iidaystaan. waxaan idinka rajaynayaa walaalahaygow inaad ka faa'iidaysataan, markaad dhegaysataanna aad rabbi nooga barisaan inuu naga ilaaliyo dulli adduunyo iyo cadaab aakhira intaba. haddaba walaalayaal, halmaanka diinta la halmaamo oo rabbi dikrigiisa laga tago iska ilaaliya. qofka rabbigii halmaama waxaa ku dhalata cabsi iyo argagax xagga qalbiga ku timaada. dhibaato weyn ayuu alla ku sallidaa. macsiyadu waa shay aada u xun, quluubta ayaa ku jirata. macsiyada cuquubada ka dhalata waxaa ka mid a in qalbiga qofka oo jirrado, toosnaantu inay ka baaba'do, diinta inuu ka inxiraafo, inuusan ka suurin marnaba inuu jiran yahay. haddaba dunuubta quluubta ayay aada u ta'siirisaa sida xanuunkuba jirka u ta'siiriyo. dunuubtu qalbiga jirrooyin badan ayay ku keentaa. jirrooyinkaas waxa looga caafimaadana ma lahan ilaa in laga tago dunuubta mooyaane. dadka xagga rabbigood u soconaya waxay ku dadaalaan inay quluubtooda ka dhigaan quluub caafimaad qabta oo daacada alle ku dadaasha. li'anna rabbi wuxuu qur-aankiisa ku yidhi: yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. maalinta qiyaamada waa maalin aan xoolo iyo wiil waxba tarayn, qalbi caafimaad qaba oo nadiif ah axadka rabbigu ula yimaado mooyaane subxaana wa tacaala. haddaba qulubtiinna hagaajiya, carabkiinna xumaanta ka dhowra, daacada alle u degdega, xilmihiinna diinta ugu shaqeeya, xaqa dad isu garabsada walaalayaal ahaada, dad isu dardaarma noqda, dad dulliga isaga diga noqda, daacada alle dad isu toosiya noqda, dhib iyo dheef iyo dhibaataba dad isugu dulqaato isku jecel noqda, hadal xun oo la kaado dad iska ilaaliya noqda. qof walba qofka kale kuwa uu ixtiraamo ahaada. walaalo iyo waalid iyo muslimiin wanaajiya. saacad walba qabri u diyaar garooba